daarshisay u wadeen dawladii 60kii waxay soo bisay afgooyina warshadii dhagax ku dhis gaalkacayna tii galeyda geeyadka la ayla hada alhad hatta geelay waxa waaye idinka sidaan ma abwaanada xooga yar halala hadlo saaxiibkayga Xuseen iyana dibadda hatta markay simboosium ay qabanayaan geelay la isku tagayso markaasino ayaga la isku tagayaan ka baadi hadii taariikhda gadaal loo raaco Soomaaliya oo dhan waxa noo qoran waa dad dagaalyahan ah waa dad rabsho badan waa dad dhac badan waa dad kaas ah wax allaale wax oo adduunyada ee laga yaabo oo dhan ka baadi Soomaaliya lagu soo jimlay war aaw Soomaalidii nabad jeclay hadii qolo ay tiraado qeelsha ma qado afdaboolan dahab dadkii dhahay aaw war hadii qolo ay maartay ceeb waa laba afmaroojis haday leedahay ceeb khasaara karoon dadkii dhahay aaw balaaya casar waa loo kalaha dadkii dhahay hadii balaayadii bahda ka yartu bargadoonay leedahay dhahay aaw tood nimaana shantada kale ciili ka ciili sharci kama ciili dadkii dhahay faatax ku dhashay faatax madiido aaw day ka bixin ku qabso qadi maysid kan cule iimaan alla uur buuxiyo makasino ya adkaan uu ku cunay ama ku ciideeyay ya wixii oo dhan kulli daldalan ya tolkaada kuma gabaye afkaaga yuusan ku gabin hadda waxa waaye dawlad kasto oo timaado in cadeys la lagu rido hayano in cadeys markay waxa waaye hadaad aamusid waa lagu dardara hadda dadkii oo dhan kulli hadda jaamacada la wada aaday jaamacadahan hadda idinka inta ka furteen anaga bedelkooda dhinacaas mudug iyo gaalkacyo waxaan rabnaa ciyaalka inaan geeyno calaashaan lee jaamacada inta adeega inay ka soo baxaan ninkii dhakhtarka ahaa ee kii xanuunsaday ee gaalkacyoodka ahaa ee la yiri war ninkan waa bukaaye halaga saaro hal xaniin si kala dawo kuma helaye dhakhtarkii kaliya markuu sida uu yiri maxuu sameeyay war dadkiisa loo sheegay leer bal haday ku qancin karaan waa loo sheegay waxa leer warniyahow ninkan waa jiran yahay si la yeelo ma naqaan waana inda adag yahay adiga le u sheeg ma idinka horta tijaabiye waryahay war ma haysaa dhakhtarkii wuxuu ku yiri ninka hal xiniin waa in laga saaraa oo waayi uu yiri deewaad bogtaa baa lagu yiri haddaan bukuma sidaas baa taladiisa war idinka maqlan ma iga tago yirdo dhakhtarkii loo sheegay ana u tagay ana qancinayo war hay kaale inaadan maxad ku diiday caafimaadkaada ku jira inaadan waxaan ku diiday ma ku sheego yiraahdo ilaahan kugu dhaarshay gaalkacyo anoo laba xaniyood nabad ku joogi waa yiri ma maanta hal xaniin ku joogi kara marka waa la dhameeyay indaade ko kala iga sheekay wuxuu yiri taas wax ka daran ku haya saaxiibo weewe kula gabara odka ka buuxsatay jeeg markaas safar la galay dhinacaas iyo baabuurta muduga la isla raacay habeenkii baabuurka uu guureynaya xariifa wuxuu arkay jeeg iyo odka ka buuxo gabadhii iyadana yar waxooga saxatay indheeda ninkan baalkii odka aha ma cunay haduu yiri soo u waday eber gabartii waaga markuu bariyo ku qoraacay leedahay waxba ugu ma jirabo way qaylisay waxay tiri waa dhacanahay maxaan ay odka ceegi meeshan waa laga cunay eber tirishbooy caaqila wuxuu yiri kulli bagaariga ma istaagine bal haloo kaadiyo nin walba wuxuu bilaabay inuu gacantiisa ursadano uu yiraahdo warkeen gacantaada waa la uriyay warkeen gacantaada waa la uriyay xariifkii baasha eber ka dhigay la gaarino gaalkacyood way wariyaa nab waa ka xariifka wada odka gacantiisa ka soo uruhaysa tuug iyo ada cunay wariyaa gabadha waxeeda tuug iyo kan ma anigu ha gacantiisa intuu san ka saaro wariyaa war gacantayda yaa ku cunay lagu gacantayda waxaan aad ugu faraxsanahay runtii Soomaaliya biyad ahaan anaga waxa waaye saaxiibadayna geeleyda waa jecelnahay laakiin inay wax noo hambeeyaan aan jecelnahay saaxiibkay Abdullah markaan uu sheekeynay iyo maartay salaadii baa nagu soo dhow SYL-kii ayaa waxaan uga soo qaaday murtidii ay tirin jireen maxay dhigi jireen uu yiri markaas waxaan iri galwiinay intii gaalkacyo guri leega waaye Soomaaliya garuun waa gamaysiina gacan dhiiranaada ay dhigi jireen gaalkaan minaas guur oo gacan moos la waayo goberna Israa'iil gacan loo gelaa geedkii la googooyo gabalaha hiraayo yaa geeri diidayo loogu goondiha manay Masar maayadii xukunta Muqdisho una leego mooskii Itaaliya sidee lagu mootiha
gabar gaal anoon guursanin oo gaxba ii cadaynin wallaahi waa gaari doonaa gegsashay rabtaan intaas kuma ekaanina gabdhihii xataa sidaasay u heesi jireen oo dhihi jireen aniga magacayga makaay waayo mininkayna mooyka muusikada Iswaayila meherleyga yeelay marka ma aragteen manaahijta waxbarashada ayadoo hal bayt xataa lagu xusaayo cadaalad la rabaa wadankan taariikhdii waa cadaalad daraysan tahay suugaantii waa cadaalad daraysan tahay af Soomaaliga waa cadaalad daraysan yahay hadda wax idin weydiiyo yabal baroor yaa yaqaano ma jirano geeli hal ma sheeg karto yabal baroor waxa la yiraahdaa sanadka markii la kala baxayo oo abaarta oo dadka ay ku kulushahay oo yabal ay hay markuu yiraahdo ninka waxa waaye khalaas waxba iigu ma jiro way godka ma yaryaraysataan markay wax yaaliin u yirbagta markii yabal la arkaa aan leeyaduuma u yiriya ma warkii yabal la arkaa aniga soo aadaysan marka wixiin hal mar aad ka baxaysaan dagaal ma taqaanaan dagaal waxa waaye gabadha iyadoo la isku caynayo area-da hadda adiga tagtaan gabadha la guursaday intay ayada ay todobadii ku jirto ay bash cunugayba dhashayba markaas horteeda la soo istaagay sanadkii qoftii ceeble waa la caynaya ninkii ceeble waa la caynaya ninkii amaanle waa la caynaya gabadhiya waxa la yiri dhigtaan intay dul yartay wax dhiifihaysa naag oo dagaal ku jirto dhalaysa ii koob adeer adduunyada waligeey ma arkay dhalin gabar todobadii ku jirto honeymoon-ka ee dhasha ma gartaya waa la isku ceebaynaa meeshan waxa la yiri saaxiibkayga waxaan ka hayaa idaaja annagu wax ma xadne waxbaan dhacnaa u yiri aniga waxaan yiri tuub inta ruuxiisa leetiin kasino ya annagu waxaan dhaxnaa dhigtaan intay dhul yartay wax dhiifi haysa taas markii laga yimaado markaas wuxuu yiri dhigtaan intay waqtishay wax dhiifi haysa dhicii la sheegi jiray dhexdan ka joognaa u yiri marka calaayi xaal waxa waqtiga aad xiriiri nooga ah maalinta oo anaga suugaan beeraley iyo suugaan geeley iyo xeebeley inaan isbarbar dhigno kadibna Soomaalida afkeeda hodanka ah wax badana ka maqan encyclopedia haduu yahay haduu dictionary uu yahay hadii xataa maanta ee ardaydii Soomaaliyeed culumtii la turjumayay hadii ardayga maanta uu rabo inuu ka soo baxo animal husbandry ama ma artay jaamacadda kulliyadda veterinary haloo badiyo waxyaabaha eray bixinta dhinaca geeleyda laakiin kulliyadii beeraha ayaa waxaad arkaysaa afkakan lagu wada turjumay oo beeraleydina meeshaan joogto luqad oo aan xataa laga isticmaalin beerihi inay ku qoran yihiin scientific words ya waxa soo dhan waxay u baahan yihiin wax dib ugu noqosho u baahan Soomaalidana taariikhdeedana si fiican loo soco af Soomaaligana si fiican loo soco dhaqankana si fiican loo soco akademiyada waa idin soo dhaweynayna dhalinyarada ee ku hawlan wax qorida waa dhiirigelinayna laakiin waxa waaye kaliya waxaan codsanaynaa inay ahaato suugaanta Soomaaliyeed mid loo dhan yahay ee aanan noqonin mid ma aragtay qabiyo ah oo aan loo dhameyn wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh